Gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka UK Cabdirashiid Magaalo ayaa baaq u diray guddida suuqa Wahen waxaana uu sheegay in si degdeg ah wax loo gaarsiiyo dadkii uu saameeyay dabkii ka kacay suuqa Wahen. Geesta kale Gudoomiye Magaalo waxa uu bogaadiyay samafale Liibaan Cadaala isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxa hadaladiisii ka mid ahaa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. halkan maanta laba kelmadood baan ka oranayaa. marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa guddidii qaran ururinta ee ganacsatada iyo culimada isugu jiray. waxaan leeyahay dadaal baad wadaan, ilaahay ha idinku garab galo. waxaan kaliya idin xasuusinayaa inay jiraan dad badan oo aan maanta dabka loo shidin oo aan iyagu sugayn inta wax la ururinayo. marka waxaan oran lahaa bal qaybtiin qaybiyo oo dadka jilicsan ala aqal bisha Ramadaan waxay ku suxuraan oo ku afuraan gaarsiiya. waxaan kaloo halkan uga ducaynayaa ninka la yiraahdo Liibaan Xuseen Al-Cadaala oo boqolkii qof ee ugu horeeyay si waadaxa $500 u gaarsiiyay. dadaal buu ku muujiyo ku ururiyay. waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro. dadka jabad wuxuu qabanayso sharaf bay ku tahay inaad caawiso dadka muxsiniinta ee lacagta soo bixiyayna. waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro. waxaan iyagana u ducaynayaa dadka daafaha caalamka oo dhan gudiyada iyo dadaalada ka wada ee u gurmanaya dadkoodii waxyeeloobay arrintii inaga wada nixisay. waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro. hawshu waa biloway, dadaalka haynu wadno. inta haddaan ka gudbo waxaan la hadlayaa guddoomiyaha maxkamadda sare. waxaan leeyahay guddoomiye in badan baa la lahaa maxkamadaha dhibaatooyin baa ka jiraan dadka lahayn. waa ninkan waa nin aqoon-yahana, waa nin dhallinyaro ah, waan hala daayo. waxa uu muusaxayaa arrinta Cabdimaalig Muuse Codon waxay kugu ahayd tijaabo. ilaahayna uu kugu eegay, ummadda reer Somalilandna way ku eegaysay. qoladayada mucaaradkuna waqti baan ku siinay in maxkamadii sii daysay oo garyaqaanadii oo dhan yiraahdeen waxa lagu leeyahay ma jirto. maxkamadiina tiri halkaa ka bax. ambiilkii dibadda uu ku qaadan lahaa inuu maanta muddada intaa lee ku sii xidhan yahay waxa weeyaan waa dulmi. waa xilkaagii oo aad gudan kari weyday. waa dadkii aad mas-uuliyaddooda haysay oo dulmigaa aad kula kacday. adigaa u sareeyo hodhkiya oo ninkii wax ka qaban lahaaya. marka waxaan ku leeyahay iscasi. ninka damiir kale marka uu dadkiisa shaqada loogu dhiibo uu ku dulmiyo uu iscasilaa. waxayna la mid tahay inuu iqraar dembigiisii qirtay. iscasil baan ku leeyahay guddoomiye. madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay madaxweyne haddaad aragto ummad mudaharaadaysa beri horena waan kuu sheego kuugu celinaya. haddii aad aragto qof ninkaa ha la sii daayo maaha qofku ceebaynaya. waxa weeyaan waxaa tahay madaxii ugu sareeyey. waa laguu cabanaya. maxkamadaha lagaaga cabanaya. wasaaradahoo dhan baa lagaaga cabanaya. qofkii wax lagu sameeyaba ninkii loo caban lahaabaa tahay. dadka ha dhegaysan. fahan in laguu cabanaya adiga waad adigu mas-uul ka tahay. laba su'aalan waxaan doonaya madaxweynaha is weydiiso. maxaad la ficiltamaysaa? dadkan mas-uulka ka ahayd ee laguu dhaariyey mas-uuliyaddeeda qaranka Somaliland oo dhan ayaad la ficiltamaysaa. maxaa ninka wax kaa sheegaa uu ku yeelay? maxaa waddankeennii ka dhigay adigoo oo u soo halgamay in maxkamadaheenni waxaasi ka dhacaan dulmiyada noocaasi oo daawato? tii maxamed siyaad barre ayay ahayd oo dadka lagu xidhayey qosle kabtan kufay ka horsiigeeye saldhig booliis. tii baa maanta taagan. dulmi cad baa taagan. dhibaatayntii ummaddaa taagan. marka cabashadu ku soo gaadho mas-uuliyaddii miyaad ilowday? miyaad inaad madaxweyne tahay aanaad kirsanayn adugu? dadka mas-uul baad ka tahay. xaggee lagu arkay mas-uul isagu ficiltama? maxaa ficilka ku geliyey? adigaaba meeshii ugu saraysay baad joogtahay. maxaad la ficiltamaysaa oo cilladda ku geliyey? wax iska celintu maxay tahay? maxaad wax isaga celinaysaa? waddanka intaad wax ka qaban karto intii taalkaaga ahaa ninba meel buu soo gaarsiiye ka qabo. doorasho wanaagsan baad qabatay. tan dambena sidii wanaagsan inoogu qabo. buuq iyo qaylaba maxaa keenay? mas-uuliyad baa ilaahay ku gaarsiiyey. ilaahay
iyo dadkii ku doortay ha ka abaan ka dhici waxaan ku leeyahay cabdimaalig muuse coldoon sii dah madaxweyne ina sheekh cali warsamaa shalay ka hadlay doctor xasan sheekh cali warsamana waa ninka loogu ixtiraamka badan yahay miyaada madaxweyne cidnaba aanad xerinin sheekh cali warsame oo ninkii dacwadda soo gaadhsiiyey ugu dadaalka badnaa dadka soomaaliyeed dacwadda inankiisina waa doctor shalay kula hadloo ninkaa samafalaha soo daa maanta wax badan buu ka tari lahaa madaxweyne ficiltanka iska daa ficiltanka iska daa wixii iscelintana iska daa rog markuu dibadda joogaabuu dagaalama annagaa kursiga ku soconno oo ficiltanka noo bannaayaya oo kelmaddii aad tirahdaan iska kiin celinayne kursiga haddaanu tagno kaarbad cas baanu idiin wada dhigaynaaye waxa weeye madaxweyne ficiltan degaayo cabdimaaligna sii dawaabil ramadaani asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu